qoyska iyo qaraabada iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed oo ka baxay maanta halyeey qaran General Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole waxaan rabaa inaan dhaho Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto sabir iyo iimaan Allah naga wada siiyo waxaan dhihi karnaa waa geeri aad u xanuun badan laakiin waqti qof waliba waqti uu leeyahay asaguna waqtigiisu maanta ku ekaa waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto General Farxaan annagana gadaashiisa Ilaahay nama fidneeyo inta kadib waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir inay maanta General Farxaan wuxuu ku baxay gacanta cadawga asagoo ka dagaalamayo meel ka baxsan gobolka Banaadir caasimadda lana dagaalamayo kooxaha argixisada waxaan rajaynayaa in qof waliba uu dareemi doono in cadawgan haddii aan la diriirin in qof waliba loogu soo galayo gurigiisa waxaan leeyahay iyadoo la diriirayo oo goobahay joogaan lagu diriirayo hal la dhinto hana la dhaawacmo taasa sharaf iyo sumcad leh waxaan leeyahay maanta waan jeclayn inuu joogo oo noolaado laakiin meesha uu ku baxay wuxuu ahaa shahiid in qof waliba haddii aad dhimanayso in asaas u dhimata haboon marka waxaan leeyahay qof waliba uu dhimanaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay cadawgan islaamka cadawga Soomaaliyeed meel looga soo wada jeesto ilaahayna ha u naxariisto General Farxaan annaguna waxaan rajaynaynaa inay tan ay noqon doonto tii ay ku soo afjarmi lahaayeen kooxaha argixisada ah oo la dhihi lahaa maalintii la dilay General Farxaan oo dhintay ayaa cadow u dambeysay waayo riyadiisii iyo rajadiisii aan naga rabay annaga ka dhabayno oo ka rumayno ilaahay ha u naxariisto samir iimaan Allah naga wada siiyo si kaar waxaan tacsi u dirayaa qoyska iyo caruurta oo ka baxay General Farxaan annagana waxaan u baahanahay in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda in mas'uuliyad gaar ah la iska saaro dadka ku jihaadaya la dagaalamayo kooxaha argixisada oo ay uga horeeyaan jananka iyo askarta la dhimatay ee maanta la duugay iyo dadka ku dhimanaya guud ahaan gobolada dalka kuna dhaawacmayo in dadkaas loo heeliyo loona duceeyo lagana qayb gala dagaalka taasa muhiim ah waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto General Farxaan inta la dhimatana Ilaahay ha u naxariisto inta ku jirta howlgalkan waxaan leeyahay Ilaahay ha guuleeyo inta ku dhaawacantana Ilaahay ha caafiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته